barasaabada saddex gobol oo kamid ah gobolada dalka mareykanka ayaa ogolaaday in dib loo furo goobaha ganacsiga isla markaana la qaado xayiraadihii isku socodka dadka ee hore loogu soo rogay dalkaasi ee la doonayay in lagaga hortago faafitaanka cudurka corona ee ku faafiya gudaha dalka mareykanka. goboladan ayaa kala ah Alaska, Oklahoma iyo Georgia. guud ahaanba maqaaxiyaha laga cunteeyo ra'iislayaasha timaha jara iyo qaybo badan oo kamid ah dukaamada laga adeegto ee goboladan ayaa dib loo furi doonaa. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo aad kor ugu sii kacaysa gudaha dalka mareykanka dadka ugu dhimanaya cudurka COVID-19, taasoo iminka kor u dhaaftay 51,000 oo qof. waxaa jira tallaabooyin kuwan la mid ah oo ay hore u qaadeen mas-uuliyiinta gobolada koonfurta mareykanka ee maamulaan xisbiga jamhuuriga, taasoo ay si weyn uga soo horjeesteen siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga iyagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo lagu degdegay. dhinaca kale weli waxaa jira barasaabo badan oo ay ka mid yihiin barasaabada New York iyo California oo iyagu si weyn uga soo horjeestay in xayiraadahan la qaado, iyagoo ku adkeysanaya in cudurka coronavirus uu kusii faafi karo gudaha dalka mareykanka haddii xayiraadahan si degdeg ah loo qaado. madaxweyne Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga ayaa si weyn uga soo horjeeda xayiraadaha saaran dalka, iyagoo ku doodaya in dhaqaalihii dalku aad hoos ugu dhacay isla markaana loo baahan yahay in la khafiifiyo xayiraadahan. in ka badan 26 milyan oo qof oo ku nool gudaha dalka mareykanka ayaa wajahaya shaqo la'aan, taasoo noqonaysa shaqo la'aantii ugu darneyd ee rubuc qarnigii ugu dambeeyay soo marta dalka mareykanka.